السلام عليكم. kusoo dhawaad channelka Nabga Media. Fadlan haddaad ku subscribe subscribe noo saar. Muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay sheeko. Shaqaalayaal ayaa maalmaha ka mid ah u socdeen goobta shaqo. Waxay arkeen ogeysiis albaabka hortiisa taala. Warqadda waxaa ku qorneed ninkii horumarka idinka hortaagnaa shalay ayuu dhintay. Sidiisa ka soo iibgala. Faktii hore qof walba waa uu murugaysanaa. Laakiin abaar kadib waxay leeyahay qofka uu yahay qofka horumarkooda ka hor istaagnaa. Taasiyada markii la joogay, shaqaalihii waxay ugu faraxsanaa inay arkaan qofka noloshooda dhibka ka hayay iyo ahaa ninka nolosheeda carqaladeyn jiray. Mid ka mid ah shaqaalihii ayaa sidaas yiri. Waa ay wanaagsaneed inuu dhinto. Mid kale ayaa sidaas yiri. Shaqaale kasta waxa jaanis loo siiyay inuu soo fiiriyo nahashka si ay arkaan qofka ku jiro. Laakiin markay fiiriyeen waxa gudihiisa ku jira, mid walba waa uu hadli waayay. Waxa nahashka ku dhex jirtay muraayad kaliya. qof walba uu fiiriyo nahashka asiga buu is arkay. Muraayada waxa ag yaalay saxiix. Waxa jira hal qof oo horumarkaaga hor istaagi kara, waana adiga ayaa go'aamin kara noloshaada. Waxa tahay qofka kaliya sameyn kara farhadiisa iyo guushiisa. Waxa tahay qofka kaliya ee is aawin kara. Noloshaada isma bedelayso hadduu mudanahaaga isbedelo. Noloshaada isma bedelayso marka uu saaxiibkaaga isbedelo. Noloshaada isma bedelayso marka uu isbedelo qofka aad jecleed. Noloshaada isma bedelayso marka uu kombiyuutarkaaga uu isbedelo. Noloshaada waxay isbedelaysaa marka aad bedeshid oo agahaaga ku istaagtid. Noloshaada waxay isbedelaysaa marka aad ogaatid inaad mas'uul ka tahay naftaada. Xiriirka ugu muhiimsan dunida waa xiriirka aad nafsadaada la yeelato.